Ladies and gentlemen, waa idin salaamay. Videogan waxaan igu tusi doonaa markaasi Tutor LMS Pro sida uu u shaqeeyo. Koorsadii u dambeysay aan soo dhignay tii ka horreysay waxaan ku sheegnay markaasi sida loo sameeyo markaasi e-learning website. oo e-learning website markii aad dhisayso dabcan waxaa u baahan tahay dhahna markaasi oo qasabtaa inaad markaas aad haysato Tutor LMS qaybta premium-ka ama version-kan. qaybtan premium-kana website-ki waa nii tusay dhowr boqol iyo wax ayuu ahaa. Marka waxaa jira markaasi qiimo kale website kale markaasi dheeraad oo markaasi laga helo. Marka ugu dambeyn waa aan soo helnay. Hadda saa u jeeda website-kan wuxuu kamid yahay website markaasi client-iga aan u dhisnay ama dad macaamiisha aan. Website-kan waa website e-learning ah. Dabcan hal mar haddii aan ku laabano website-kan e-learning-ka saa u jeedo waxa uu leeyahay markaasi waxaa ku jiro markaasi koorsooyin dhowr ayaa ku jiro least 5 course ayaa ku jirto markaasi koorso walba 10 ay ka kooban tahay. Marka waxaan rabnaa Tutor LMS-ka wuxuu leeyahay dhahna markaasi ama wuxuu wataa plan-ka premium-ka aan qayb markaasi enrollment oo haddaan dul imaado fiir meeshan enrollment haddii aad midka premium-ka aadan haysan enrollment-kan ma arkaysid. marka enrollment-kan maanta soo u shaqeeya ayaan arki doonaa iyo marka sida aad ugu maarmi lahayd midkii dhowrka $100 ahaa haddii aad kamid tahay dadkii koorsadii e-learning-ka aan soo dhignay ee daawada ee website samaysta ama lehbo laakiin markaasi ku dhiban. kan sida u shaqeeya wax kale ma aha. Marka koobaad ardayga ayaa wuxuu sameynaa markaasi waa is register gareynaa. Saa u jeeda meeshan website-kan hadda aan dhisana qayb login iyo registration uu leeyahay. Ardaygu is register gareynaa register now ayuu ku dhufanaa. Markuu register now ku dhufto dabcan aniga hadda wuxuu leeyahay waan ku jiraa hal mar waxaan ku galaa Incog window ayaan ku galaa hal mar. Incog window markaan ku galo website-kan hal mar toos aan u tagaa. ardaygii waa kana visitors-kii wuxuu leeyahay register now. wuu is register gareynaa marka koobaad ardayga is register garey ayaa leedahay. Sababta enrollment-kan waxa uu shaqeynaa waxaa kamid ah lacag qofka haddii uu cash delivery koorsada kaaga iibsado ama lacag caadi ah uu kuu soo diro uusan markaasi online ku iibsan oo lacagta payment gateway EVC ama banaanka uu kugu siiyo laakiin ku dhaho koorsadaas rabaa markaas koorsadaas dhexdeeda aad markaas ardayga enrollment ugu sameynaysaa oo u siinaysaa oo u furaysaa. Marka koobaad ardayga meeshan ay ku qoran tahay student registration page-kana imaa leedahay oo is register gareynaa. meeshan kaba soo qaad magac ayuu samaysanaa. hadda magacaan aan tusaale ahaan tijaabinaynaa Geedi Faarax. meeshan koobaad waxaan gelinaynaa markaas first name intan last name intan waxaan gelinaynaa sidoo kale kaba soo qaad username waxaan leenahay Geedi33. hadhow waa inaan markaas maxaa lahaay markuu is register garaya waxaa dhihi doontaa email-kii iyo soo sheeg username-ka saa u raadisa. marka kana isla xasuusnaano sidoo kale tusaale ahaan meeshan waxaan isgelinayaa Gmail markaas oo tijaabo aan isgelinayaa kaba soo qaad aan leeyahay gmail.com. marka intaas aad sameyso inta email-ka aad geliso inta waxaad gelinaysaa marka password oo ardayga abuurana student-iga waa qaybtii registration-kii aan joognaa. hadda aniga arday ahaan aan markaas u dhigmaa. waxaan leeyahay markaas kaba soo qaad 1 2 3 4 5. password-keeda waa intaas mar kale password-ka ku celinaa 1 2 3 4 5. markii aad intaas sameyso saa u jeeda hadda marka first name inta gelinaa magaciisa koobaad kana magaciisa saddexaad midka ugu dambeeyo username oo abuurana username waa number iyo xarf caadi ahaan intana wuxuu gelinaa markaas maxaa lahaay email-kiisii intana password oo abuurana password ku celinaa. markuu intaas sameeyo ardayga is register gareynayo calaamadan uu ku dhufanaa marka register uu leeyahay. ardaygii marka hadda wuxuu sameeyay waa is register garey waa kana magaciisa waa Geedi Faarax. qaybtan ayuu keenaa markaasi qaybtan hadda fiir marka enrollment-ga iyo courses iyo wax hadda meeshan u yaala malaha. enrolled course 0 waa active course waa 0 complete course waa 0 laakiin hadhow markaan koorsada aan enroll ku sameyno koorso gaar ahaan meeshan ay ugu soo muuqanaysaa. marka adigii marka admin-ka ahaa website-kaad usoo laabo website-keena waxaana keentaa marka qaybta backend-gana keen adiga marka ardaygii wuxuu ku dhahay username-kiisa abuurtay ustaadow iyo enrollment ugu sameey. Tutor LMS-ki waa kana marka waxaa imaanaysaa qaybta enrollment-ga ayaa imaanaysaa enrollment-gaas ku dhufanaysaa. enrollment-kan marka midka premium-ka markii ay iibsato tusaale ahaan meeshan premium-ka marka iibsato plan-ka upload soo dhahda waxaa tagaysaa marka koobaad hal mar yar haddii aan hordhac ninka siiyo add-ons meesha ku qorantaa ku dhufanaysaa. add-onska markii aad ku dhufato waa kana qaybta enrollment-ga hadda tig ayaa noo saaran waa on. sidoo kale qaybtan oo certificate-ka ayadana maxaa lahaay shahaadado kale ayadana on dhaho hadhow saa shahaado ardayga u siiso automatic ah. qaybtan reports waxyaabahan oo dhan ayuu wataa premium-ka saa u jeedo. qayb wuxuu leeyahay hataa Google Classroom qayb wuxuu leeyahay Google Meet oo leeyahay qayb wuxuu leeyahay social login waxyaabo badan ayuu leeyahay. markaas qofka Facebook-giisa hataa iyo maxaa lahaay Instagram-kiisa iyo Google-giisa login ku dhaha hataa u baahan inuu wax abuurto
taasna hadda u baahan tahay iyaduna maxaa lahayd tiga u saari kartaa meeshan camal had tigan saarayna hadhow markii registration u dhaw si uu arko saa ujeeda Facebook iyo Google iyo kuwa kaloo la hal raacabo halkaas ayuu ku helaa marka waray dhamaantiis markuu ardayga maxaa lahayd oo ku dhaw is register garay adiga waxa ku dhuftaa meeshan enrollment ku dhufo enrollment-na sida loo soo furto hadda waan aragnay marka enrollment uu ku dhufto kadib meeshan calaamadan ku dhufo ay ku qoran tahay enroll student saa ujeeda hadda ardaydani waa enroll gareynay waa arday markaas qaatay koorsooyinka soo enroll student yaa leenahay dabcan meeshan uu keenaa marka enroll student marka calaamadaas ku dhufato select course ku leeyahay website-ka saan hadda aragnay 5tan course ayaa dhex taalay 5tan course ardayga marka course-de ayaa rabtaa inaad siiso waxaan leeyahay course-dan kaba soo qaad ay ku qoran tahay markaas maxaa lahaay sida traffic badan loo helaan ku dhufanaa okay meeshan wuxuu dhahaa marka student raadi magaca ardayga magaciisa hadda aan soo aragnay waa geedi aan qoraynaa bis soo dhowr geediya meesha noo soo boodo laakiin waa kana geedi 544 gmail-kii hadda aan abuurno geedi faarax magaciisana waa kaas asigaas marka calaamadaas balaaskan ku dhufanaynaa dabcan marka intaas sameeyno waxaan leenahay enroll now ayaan ku dhufanaynaa soo ardayga saa ujeedo marka waa enroll gareyn approve marka hadda ardayga waxaan leenahay waan ku enroll gareynay ardayga marka wuxuu ku soo laabanaa qaybtiisii waxa laga rabaa marka inuu dhaho refresh meeshan hadda wax koorso ama taalo laakiin markaan refresh dhaana fiiri koorsadii loo yaqaan sida traffic badan loo helo ayaa halkaas ka soo muuqata saa ujeedo hadda enrolled course waa hal active course waa hal hadii lacala uu ku dhufto koorsadiina dabcan saa ujeedo start learning ayuu leeyahay koorsada lessonskeedii waa kaasa start learning hadii uu ku dhufto kaba soo qaad halkaas waxa u daarmaya markaasi lesson 1 ayaa markaasi halkaas u daarmaya soo marka midkan loo yaqaan enrollment-ga sidaas ayuu markaas u shaqeeyaa dabcan website-kan wuxuu kamid yahay midaan client-iskan u dhisnay kuwa kale kasi badan waa ay jiraan marka hadii aad u baahan tahay e-learning noocan ah in lagu dhiso waa nala soo xiriiri kartaa oo qaabkan u shaqeynayo professional ahaan marka maxaa lahaay qofkii u baahan markaas balaayinkan tutor LMS qaybta premium-ka ah ha ila soo xiriir insha Allah sidoo kale faahfaahin waxaan dhigi doonaa link description-ka video-gan oo website-ka macluumaad badan aad ka akhrisan kartaa ama aad ka dhex iibsan karto soo muuqaalka xiga qayb badan